kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhowaada. Waxaan idiin soo gudbinaynaa duqeyntii labaad 24 saac gudahood. Duqeyntii labaad oo xooggan oo ka dhacday toga Maragade oo ka tirsan toga Baalade. Warbixin xasaasi ah ayaan idiin soo gudbin doonaa guusha ciidanka difaaca Puntland ay markaasi ka gaareen howlgalkan iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee Mareykanka uu ka midka yahay. Haddaba haddaad ku faraxsan tahay jabka kooxda Daacish isla markaana aad taageersan tahay ciidanka geesiyaasha ee difaaca Puntland, waxaa marka hore ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo subscribe-ka noo taabato, sidoo kalena muuqaalkan like gareyso siina share gareyso si dad badan xogteenna ay u gaarto. Waa hagaag. toga Maragade waxaa ka dhacday duqeyntii ugu xooganayd 24 saac gudahood. saad markaasi xogaheena hore aad ku daawateen, shalay duqeyn xooggan ayaa ka dhacday togan, waxaana ku sugan oo halkaa ku dhuumaaleysanaya xubno ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Daacish. Puntland waxay sheegtay in ay markaasi duqeyn ka dhacday ceelka Maragade ee toga Baalade ay markaasi lala eegtay xubno ka tirsan Daacish. Puntland waxay xustay in duqeyntaasi fulisay dowladda Mareykanka oo ka qayb qaadata la dagaalanka Daacish. waa Daacishta markaasi ku sugan buraha Calmiskaad. bayaan kooban oo ka soo baxay howlgalka ciribtirka argagixisada ee Puntland ayaa lagu yiri duqeyn ayaa hadda lagula beegtay firxadka argagixisada Daacish ceelka Maragade ee toga Baalade. duqeyntaasi waxaa fuliyey saaxiibada dowladda Puntland ee Mareykanka ayaa lagu yiri. Puntland shalay sidan oo kale waxay sheegtay in Mareykanka uu duqeyn ka fuliyey toga Baalade, balse howlgalka Africom weli kama hadlin duqeymahan isdaba joogga ah ee ka socdo dhulka buraleyda ah ee Calmiskaad. maalmihii u dambeeyey waxaa toga Baalade ka socday howlgallo cir iyo dhul markaasi isugu jira oo lagula dagaalamayo xubno markaa ka tirsan kooxdan oo la sheegay in halkaas ay ku dhumaaleysanayaan. duqeymuhu waa isdaba joog oo kala joogsi ma laha, sababtoo ah kooxdan firxadka ah waxay naf ka dayayaan in markaasi ay ku dhuuntaan dhulka buraleyda ah ee Calmiskaad, oo ah dhul markaasi ay adag tahay in ciidanka ay si sahlan ku galaan maadaama dhulka hoostiisa ay iyagu ku jiraan. balse ciidamada marka loo eego xaaladda ay ku dagaalamayaan iyo guud ahaan deegaanka in ay aad u adag tahay in lagu dagaalamo. saasoo tahayna guulo waaweyn ayay ka soo hoyiyeen tan iyo markii howlgalka uu bilowday. sidoo kale dowladda Puntland waxa ay amar culus ay dul dhigtay dadka shacabka ah ee degan toga Baalade, oo waxay ku amartay in halkaas ay isaga guuraan maadaama kooxda Daacish ay gabaad ka dhiganayaan shacabka, sidoo kalena ay ka helayaan gargaar xitaa shacabka haddaysan u garan oo iyaga aysan siinin qaab markaasi baad ahaan ah ay uga qaadanayaan saan xogta ku heno. si taa looga hortaga marka oo shacabka iyo sidoo kale ciidankuba ay isu kaashadaan oo hal meel uga soo wada jeedsadaan, kooxdana la go'doomiyo oo ay waayaan wax ay dabka ku shitaan, waxay markaasi soo jeedisay Puntland in dhammaanba deegaanada toga Baalade laga guuro oo shacabku ay baneeyaan, halkaana ay si buuxda markaasi ula wareegaan ciidanka difaaca Puntland. cid allaale ciddii halkaa dhaqdhaqaaq ka samaysay lagu arkay ama lagu qabtay shacabana tallaabo laga qaadi doono, maadaama gabi ahaanba kooxdan la joojinayo irid walbo iyo waddo walbo oo ay uga soo galaan adeegyo markaasi ay muddo ku sii noolaan karaan. hadda awooddoodii waa la weeqay, tabar badan ma laha, laakiin waxay weli isku dayayaan in iyaga oo shacabka ka faa'iideysanaya oo shacabka baadaya xoolaha nool ee haystaan ka baadaya iyo waxyaabaha kale ee markaasi nolosha daruuriga u ah in ay muddo kusii dagaalamaan isla markaana ay buraha ay kusii jiraan. Puntland arrintaas waxaa muuqato inay fahamtay kadib markii dhowr jeer la qabtay dad shacab ah oo nimankan deegaanada ay ku sugan yihiin hadda soonaheeda jooga.
sidoo kale goobo laga qabtay nimankan oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay gacanta ku dhigeen ciidanka difaaca Puntland waxaa lagu arkay waxyaabo markaasi muujinaya in kooxdan ay haystaan garab aad u weyn oo ah dadka deegaanka. waxaa goobihii ciidamadu ay gaareen ay ku arkeen madaxyo ari oo markaa la bireeyay. taa marka waxaa muuqato oo la leeyahay war nimankan dagaalka ku socda duqeymaha ku socdo oo meel ay galaan la sidee ku dhacday ama ku suurta gashay in ay helaan xoolo nool oo tiradoodu intaa la egta iyadoo ciidankii Puntland tab ay wax ku helaan la yihiin oo diyaarado ay hawada uga soo daadinayaan waxyaabihii ay markaasi quudan lahaayeen. marka waxaa la yidhi nimankan meel kale iyo waddo kale u furan ma laha aan ka ahayn inay shacabkaas ay dugaashadaan waxay markaa u baahan yihiin ay ka qaataan. hadda marka halkii irid nimankan u fayoobaa horta waa laga soo xiray. taa ku bishaaraysta halkii irid nimankan ku sii noolaayeen. su'aalo badan baa yani la iska weydiinayay warbixinadii hore xataa aan soo baahinay halkan ku baahinay su'aalo badan baa ku gadaanaa oo ku gadaamanaa oo ay ka mid ahay war howlgalkan dheeraaday ee muddada sanadka ku dhow ka socdo dhulka buraha calmiskaad maxay tahay sababta ka dambeyso in waqti intaa leeg uu qaato. jawaabtii way soo baxday oo ciidanku isla markiiba waa ka jawaabeen. waxayna uga jawaabeen in la fahmay nimankan halka tuubada uga socoto. nimankan tuubo qabow baa ku socotayba lamaba ogeynba. dadka deegaankii aayar iska jaqayeen wixii markaas ari ahaa ee xoolo nool ahaa ee u joogayba iyagaa kala wareegay. marka arrintii hadda waa la fahmay. ciidanka difaaca Puntland hadda waxaa u sahlan in ay soo afjaraan kooxda. waxaana markaasi suurtagal ah ama qasab ku noqonaysaba inay isa soo dhiibaan oo isu soo dhiibaan gacanta ciidanka difaaca Puntland. waddo kale oo hadda u furan ama u furnaanayso ma jirto ayaa la leeyahay. haddaba howlgalkan waxaa la filayaa in uu noqdo mid si degdeg ah hadda kusoo gabagabow. horta howlgalka hadda waa isdaba joog. maalin kasta ciidanka difaaca Puntland guulo waaweyn ayay gaaraan. duqeymuhu kala joogsi maba lahaba. shalaad ogeydeen toga baalada waxa ka dhacay hadda toga maragada duqeyn xooggan ayaa markaasi laga soo warinaya oo saacado ka hor halkaa ka dhacday. haddaba saad u hesho warbixinadii ugu dambeeyay dagaalka buraha calmiskaad wax walba oo kusoo kordho iyo xogo walba oo markaasi kaa qarsoon oo ku saabsan toga baalada halkan ayaa si toos ah ogala socon doontaa daawade. haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto muuqaalkan like gareyso siina share gareyso si dad badan xogteena ay u gaarto. mahadsanidin.